marka liintan aad jarayso iyo asbaabaha u jarayso baashan waxa loo diraa inay iido oo baash ay ku fiicanaato baala ayaanka dilay oo dafuufiga dhaxda ugu jiro iyo wariiri isaaqsaaqa sax sidaas marka loo jaraa inta qareelka la beegsada marka inta marka oo qoyaanka waa la iska deena iyo qashinkii oo abulada waa la dijiyaa sax marka inta qareelka bisa laga jaraa okay waa maasanta halkani waa degmada Afgooye oo ku caan ah wax soo saarka degmada Afgooye waxay kamid tahay degmooyinka ugu qurxoon ee gobolada dalka Soomaaliya degmadan waxaa ku nool ku dhawaad 74,000 oo qof dadkaas oo ka shaqeysa sida ganacsiga xoolaha beeraha hadda waxaan ku sugnaa mid kamid ah beeraha ku yaal degmada Afgooye beerta oo ka baxaan diimanaanta beertan waxaa iskale mid kamid ah beeraleyda degmada beertan waxaa laga soo saaraa liimanaanta kala duwan iyadoo loo isticmaalo qaabab fara badan sida in loo suuq geeyo gobolada dalka ay kamid tahay Hargeysa gobolada bari waxaa kaloo loo isticmaalaa in dibadda loo dhoofiyo dibadda marka loo dhoofiyo waa la qalajiyaa kadibna waxaa laga soo sameeyaa loo soo celiyaa wadanka iyadoo laga soo dhigay barfuun iyo waxyaabo kala duwan Afgooye waa degmo qadiimi ah degmo aan ku dhashay dad badan ay ku dhasheen wax ku soo barteen waa degmada labaad ee ugu weyn gobolka Shabeellaha Hoose marka laga soo tago magaalada madaxda degmada marka Afgooye waxa ku yaalo iskuulo jaamacad isbitaal wadagama ku caan ah wax soo saarka iyo dalagyada kale waxa aad ay caan u tahay wax soo saarka qudaarta sida cambaha liin beelmada liin dhanaanta ansalaatada iyo dalagyooyinka kale sidoo kale waxay caan ku tahay ganacsiga iyadoo dadka tuulooyinka badana ay u tahay xarun degmada Afgooye ayagoo ka soo adeegta degmada